laascaanood waan dubinaynaa laascaanood dhulkaan la simanaa niman baa xamar ka hadlay oo yiri irir Soomaalish daaroodkuna nabiyuu noqonaya dalkii oo dhan baad cashiimaysateen madaxweynuhu inuu jeebada furo hore wuxuu noqday Robert Mugabe 230 sanadood buu hor fadhiyay waa idaacada raadiyo baraarug daawadayaal waxaan halkan ku soo booqanay saaka magaalada Hargeysa xilibaan Cabdulqaadir Jaamac oo isagu hadda ka bilaabay magaalada Hargeysa ganacsi marka uu ka dhamaaday xilkii golaha wakiilada ee bedeleen baarlamaanka sanadkii dhaweyd la doortay ee xilliga isagu fadhiyay aqalka golaha wakiilada halka xildhibaanadii kalena qaarkoodna ay xilliga iyagu wali ay garaacayaan miiskii siyaasadda balse isagu taa uu ka duwan yahay oo waxa uu bilaabay ganacsi oo asaasay bal ganacsigiisaas ay weydiinayna waxa uu yahay xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Soomaaliya wali qaali oo culus oo aad iyo aad lejin oo soo wada shaqeynay oo nin aad iyo aad codkar oo aanu saaxiibnahay aad baad u mahadsan tahay soo dhawow waan ku leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد عبدالقادر جامع حامد أهنا قوله هراء وكيلة 20 سنة 20 سنة قولها ها 6 سنة معلم أنت سن سوماليلاند شوقي مركا الحمد لله رب العالمين هذا واحد بلعبي هرانا أنا أروح اللبان وهذا ما بلعبين حامد طرف الأجنسي وأن توريسم ديارات نوتايو حامد نوتايو يو معدن والله يراد علمدو مينرال كمباني oo macdana oo iyadana aan si fiican ugu shaqeynaa hadda meel fiican noo maraysa waxaan ku kaloo jiray Xaamud Construction Company mashaariicdaas hore way socdeen horaan u bilownay 2 sano hadda way marayaan alxamdulillah in kastoo meel badan aanu ka guurguuray oo degsiimadu nagu xumaatay haddana alxamdulillah waa soo kabanay waxa dhacay birihii businesska aanu ku iibgeynay waa naga burburiyay dawladii hoose naga burburisay xabad bay nooga jijibiyeen xitaa si naxariis darra ama xandarra birtii waxay taagneed $800 bay ahayd birtu action kala dejiyay iyo waxa lagu qoray oo dhantaana magdhowgeeda waxaanu ka sigi doonaa maayirka magaalada Allah iska daayay ina mooge inta markaan ka tago saaka waxa inta businesskaygaas aan ku ekaanaya siyaasadana kulli laga maarmi maayo waxa weeye intii ay diyaariyeen odayaasha go'aankii ay soo saareen odayaasha abtiyaasha ee go'aankii waa abshir baan niri waanu leqnay waanu qaadanay waana ku mahadsantiin ina go'aan soo saartaan waayo dareenkiina in lagu shaqeeyo weeye iyo raayigiina maadaama dadkii wakiil ka tihiin waxa uu ku noqonayaa go'aanka waan qaadanay laakiin waxa la yiri gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa abtiyaal seediyaal ilmaadeerayaal midi suurtoobi mayso inay laascaanood dinto nin baa nashqadii soo diray oo yiri laascaanood waan dubinaynaa qurbajooga reerka soo rar garoowe keen laascaanood dhulkaan la simanaa maxaad ka wadaabaan ku yiri laascaanood way dhisan tahay way barakaysan tahay wuxuu yiri annaga iyo beesha dhexe seegan mayno aad iyo aad baa kelmadaha uga xumaaday waayo beesha dhexe meel kala tagi mayno waa beelaan isku isranahay waa beelaan meel walba iska soo gallo xidid gacal xigaal wax kasto leeyahay baanahay waa niman goba oo lala noolaan karo oo lala dhaqmi karo oo dadnimo leh marka aad baan uga xumahay inay fikradda qaataan khaldan suurtooni mayso laascaanoodna way dhisnaanaysaa sidaana waan ka sii qurux badinaynaa anigu 2 goor baan tagay iyadoo biyo qadhaan lagu cabayo oo seeka 95 baan soo maray anoo Kenya ka imi oo qaxooti ku berberaal naga soo dejiyay ka bacdi laascaanood baan soo maray saasan marka waan garanayaa waxa meesha yaalay siday maanta tahay marka inagoo aan dubin qolada daaroodnimada ku dagaalamaysa inagoo aan dubin baynu saxaynaa talada dalkana waxbaana naga siinaya annaga aan rajaynaynaa in nagu wareejiyo hadda waayo doorkani say gob u yihiin bay marmar xanaaqayaan oo iyaga laftooda isku sigtayba hadda wax kale ma ahayn dagaalkoodu xisbiyada tirada badan in la furo madaxweynaha Allah khayr ha siiyo mar labaad iyo biixi baan taaganahay anagu sababtaan u leenahayna waxa weeye annaga waa naga ilaaliya hadaan hortinahay inaan Soomaaliland ba madaxweyne wax walba 30 sano la dagaalamay maanta dagaalka laascaanood haduu sii socdana 30 sano dib u sii dhacaya marka wax leeyahay indho haydin dilaaceen waagi haydin bariyo niman la jiniina baatihin laakiin aqli ku dara talada abtiyaal tala inaan isla ogeeyna qaadanina dagaal hadaa galeysaan anaga idin la galeynaa abti balaan to kill qorshe dagaal baynu samayn karaa laakiin wax dagaal uu inoo haya ma jiro xabadna Soomaali meel la ku tagi mayso hadii laga tagi waayo oo beesha dhexe soo degi weydo labada maamul ee baan isku daraynaa saddexda maamul maakhir sool iyo Puntland
waxaanu kula dhuuqi doonaa Cumaan Soomaaliba waa ka wareegi doonaa sababtoo Soomaalidu waxay noqotay kara wax qabyaalad iyo qurun ku shaqeynaya hadda maalintii dhaweyd markii shilka laascaanood dhacay niman baa xamar ka hadlay oo yiri irir Soomaali sheegtay haddii asii wadaan hadalka waa sii badisaan waa sii boodboodaan daaroodkuna nabiyuu noqonaya marka meesha waa la isku xumaanayaa sideena aan ku wada dhuuqno baan leeyahay beesha dhexe inaga isku dhalanay inaga deegaanka Ilaahayna wadaajiyay nimankaas waxay rabaan dagaalka xamar ka socda inay halka keenaan ka yeeli mayno dagaal hadda anigu maracad baan sitaa waxaan tegayaa hadda saacada laga bilaabo wiigan safar baan u baxay Laascaanood tu Garowe tu Boosaaso tu Muqdisho intaana nabadayn iyo inaan dadka isu soo jiidno iyo in Soomaali bal inay midoobi karto walaaltinimo mar labaad la eego walaaltinimo wax ka roon ma jiraan baanu ka shaqeynaynaa insha Allah waxa tahay adlaad siyaasi ka soo jeeda gobolada Saraag wila gaar ahaan beesha Warsangali hatta socdaalkaaga ma loo rakaa waa socdaal kamid ah socdaalada dibadda laga tumayo gobolka Sool Soomaali weyn beesha harti ama beesha daaro haddii aad joogi weydido deganaan laga waayo adiga wad nolol wada noolaash dalkii oo dhan baad cashiimaysateen adeerka ina kaahin wuxuu sameeyay wasaaradiiba wuu xidhayba waa loo geli kar waay adiguna heer daahir baa tahay marka qabyaalad xunu caanteen aniga waxan qabyaalada iyo waxan baa necabahayba anigu dhulka hadda waxaan u tagayaa nootaayaan leeyahay xaamud nootaayo Laascaanood baan ka furayaa Boosaasan ka furayaa Cergaabaan ka furayaa Garowe waan ka furayaa aniga waxaan siyaasadan iyo waxaan aad igu xoqaysid iga daayo wax caadi ah igala hadalaabtay baan kaaga waramayaa inaka waa nin heer daahira waa nin goba waa nin deeqsiya waa nin marka la martay wax goyn kara waana wasiirada ugu tukaweyn maamulka laakiin annaga koore baa kaxayay wiilkayga oo u geeyay yarkaygu khalad buu galo suldaankiigu aflagaaday suldaankaygii lama taabtaanka ah ee Saciid Cabdisalaam xaal baan ka bixiyay haddana ninkii sida uu yiri sida buurmadow maxaa loo xidhi waayay hal shaqo yar oo kooban baan u doonay adiguna waa joogtay ninkii kaxayana wad garanay sheeg cali koora u geeyay Saleebaan cali koore baa u geeyay way u socotaa laakiin wuu nagu raajiyay wuu nagu hariyay xukuumadii ka dhamaa hay arrintaas ka talas war khaldan tahay xaalka bixi kelmadda muxuu ga dhamaanayaa 2 sanadood baa u hadhay 2 sanadood oo sharci u haystaa war maya maxaad adigu horta ku celiday su'aasha 2 sanadood oo sharci oo garantiin u haystaa maxaad u leedahay xilkii ka dhamaa iyada qaran ee iyagoo laftigooda guurtidu miyaanay golo qaran ahayn guurtida kordhisay sidii ku doodiyaan ya sida macaadka sidii ku doodiyaan waxay leeyihiin sida hanoo gelin xaafad waxay ugu tagtaa wax xasarade inaga wada hadlaynee adaan kula hadlayaa maxaad u leedahay xukuumadda xilkii waa ka dhamaaday ku noqo jawaabta kama dhamaan 2 sano garantiin u haystaa 5 madaxweynaha soo maray 4 madaxweynaha loo kordhiyay maxaad rabtaa adigu ha khaldan dadkana been ha u sheeg waa sida ay ku doodiyaan mucaaradka aragtidooda adigay ku taala anaga nooma taalo mucaaradku waana xor waliba waxaan jecelahay inuu madaxweynuhu albaabada ka furo madaxweynuhu inuu jeebad sugde madaxweynuhu inuu jeebada furo qasnada furo dadka wax siiyo soo dhaweeyo xisbiyada mucaaradka la hadlo waliba ciro boqolkiiba 42 buu leeyahay talada dalka in lala sheer gareeyana xaq buu leeyahay laakiin tan kale labadiisa sanadood xalaal bay u tahay xaq buu leeyahay golayaal baa waan sixiyay xukuumadda xiisab bixi maanta number 1 bay noo tahay maanta noo bilaabantay wasiirka jidadka waxba ma ogidbay wasiirka jidadkana noo magacaabay hadda noo jooga qaar kale oo badan ilaa maaliyadda rajaynayna ilaa arrimaha gudaha war waxan maanta meesha yaala harti iyo baa loo kala qaybsanaya beesha dhexe iyo samaroon ana xisbiga kulmiye goorma igu dabtay waxba laba joogtide kulmiye waa ka baxay waa beri baan dhisay waa berina waxba naga aan nin baa noo dhuntay rageedaan moodaynay hadda waxaan u socdaa rajo waan ceergaabaynayaa hadda gudoomiyaha atash normal sigis garowe isaga waan ka tagay gaba yar baan kaga tagay isaga mar daabaad igu soo celcelisay ya maanta yaa gabayga soo waan ka daayay ya dimuqraadiyad baa la qaatay dalkuna dimuqraadiyad buu ku socdaa dimuqraadiyada system baynu wax ku saxaynaa aniga wax badan baa iga maqan wasiirro badan baa iga maqan taliyayaal baa iga maqan shaqaale fiican ma malihi shaqaale baa leeysiiyay 30 shaqaale oo nin wasiir oo Yusuf la yiraahdo uu nasiiyay oo meel noo dhigay niman saaxiibadayaasha ayaa mar dambe lagu maslaxay 30kiiba marka adeer waxaan ognahay cidimo ogee hadalkana dibadda hayga wada keenina maanta la dagaalantaan nimankii siyaasiyiinta harti oo labadii urur ee xagladkiisa iyo waabari Soomaaliya kore
idinka diidaya oo lugta qabanaya maanta diiwaangelintooda deegaanadiina ka socda arrimaha inaad siyaasadda ka mid noqotaan oo asxaabta aad ka mid noqotaan idinkaa sababo waxbaa ka jira beentaana maaha laakiin anigu dadku waa kala shaqsi hadda qaar baa igu haystay kooraan habeen yiri koore halla waa lejin waa nin jira haddana rag baa jira ilmaadeerada baa igala soo hadlay imaaraadka waxay yiraahdeen koore wuxuu noqday Robert Mugabe 230 sanadood buu hor fadhiyay marka inuu naga hor kacan jecelahay anna waxaan banabcahayba hebel baa jecel hebel ila nibcaw kama ba helaba anigu si farasbilo baan u dhaqmaa taana waa ku sheegayaa aad leedahay xisbiyada ana aasaasay waa beri wax ka aasaasay nin markii hore aan aad u wada shaqeynay xitaa mustambeedkan ahaa anigu group sugday aan kaaga dhacay mustambeedkan ahaa groupka loo calaamadiyay haddana markii aan yare xoogaa xumadan igu dhacday iyo bahalkii aan maalmo yar jiifi buu waxaygiiba ka guurayba xitaa ima qancin anna dacwo uma qabo dalkuna waa dimuqraadi xagla toosiyana waa soo saaray dhinac baan kala socdaa waana taageersanahay waana nin jira waana nin ku dhacle waana nin wax bedeli kara waxna sameyn kara kala tanaadi tiri rajo markii hore waan hertiyay haddana waan cirgaabeynaya waan xaqna waan u leeyahay go'aan kan ana iska leh xagla toosiya deemaya sida kale dadka inaan u sheego xisbiga in la soo saaro laakiin rajaan ku biiray rajaan ahay saacada laga bilaabo gobolka Sanaag baan ka soo jeednaa Sanaag baan ka shaqeynaynaa waxa jira imika in shirka laga abaabulayo magaalada madaxda maamul goboleedka Puntland ee Garowe wal shirka waxa ka soo baxay ku tahay sidoo aragtaadu shirkaas wariyaa wax ma ku sheegaa haddii aad dagaal doonaysaan idinkiiba xaalada buuraya war anaga harti baan na yiraahdaa niman laan dheerayaal baan nahay niman aan cuqdad qabin baan nahay niman beesha dhexe wax la leh baan nahay beesha dhexena meel kale tagi mayno deganaan baanu hawsha ku dhameynaa haddii laga tagi waayna maamuladaydaan isku daraya Soomaali weynba waa ka wareegayaba imaan baan balla sheer gareyn anigu hadda waxa soo dhan inaan dhageysadee waxa soo dhan inaan ka qodistaan rabaa ka maydho businesskayga bilaabo wixii aan dad wanaag kaga shaqeyn karana aan kaga shaqeeyo بعدين أقول بدرتي شغال هوري بارمان ما دام كذا ماضي والشغال بسم الله الرحمن الرحيم شغال شركة إذا واحد يراد علم ذو مينرال كيمبيني وشركة شرعية سن أسي جروب بنكون هاي هذا كارتدي وحي وده وادي تشيني أنا جو جروب بنكسو بنداون دونتا وسارد معلش مواصلة طبعا يدا شرعي جاب حيبه يدا شرعي بحسها شرعي يدا ليس كما يدا نصيص لا أنت ما بدقاتي كهرباء sidaan hadda aanu bilaabana horta intii dalka gudihiisa aanu ku mashquulsanayn hadda aanu gudi 7 xubnood ka sameeynaa waanu bilaabanaa waan ballaadhinaynaa saami qaybsi dhabaanu ka dhigaynaa hadii loo baahdo laakiin dad aqoon leh baan u baahnaa kana waa saddex arrimaha gudaha oo aleedahay wuxuu xidhay albaabkii wasiirka arrimaha gudaha hadda waxa la sheegayaa in arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dhanka bariga laga badiyay waa inta la qabtaa waa lagama badin iyaga badiyay laakiin way ka baqeen inay sheegaan iyaga badiyay Soomaaliland waxba kama lumaan anigu 26 sano Soomaaliland joogo waxba daqiiqad bay wax kasta ku soo qabeen hadii hadda moobil laga dhaco aad electricity u tagtay qolada siyaasadda khatarta markaba waa lagu soo qabanaya xora anoo aaban kula hadlaya xaqiiqda dalka waxa jirana waan og isugday su'aal baad weydiisay xaqiiqda dalka waxa jirana waan ogahay dalku meeshu marayana waan ogahay bilaayana kama jirto anigu maanta ninka ii hiiliyay ee sharafta ii sameeyay ee magacayga kor u qaaday waa Muuse Biixi Cabdi sababta ugu qaadayna xeerkii dalka oo dhan baa laga mamnuucayba inaan soo galo systemkiiba maanta ninka iigu hiiliyay ee ku dagaalamay xisbiga ii furay oo xisbigayga doonaya inuu meesha ka mid noqdo oo harti meesha yimaado lejinka waa la shaqeynaya anigu waana hor taaganahay horena hadaaftimaan u geeyay kuwii markaan hadaaftima geeyay kuwii ka baqay hadaaftima wallahi tagi waayay ee guryahooda ku dhuumanayay buu wasiir ka dhigay taana calaf ka adeegay waana ogolahay waana shaqeynayaa tahay siyaasiyiin inta badan aqoon leh gobolada bariga maxay kula tahay shirkaas beesh ay qabqaabisay beesha u baahatay waxa ka soo bixi karay runta waan tagayaa markaan nabiga maxamed ka salay markaan tago shirka may khayr baa ka soo baxaya hadaad adigu shar dooni waxay dadka qaarkood siyaasiyiinta gaar ahaan beeraha dhexe ay walwal ka muujinayaan shirkaas inay ka soo baxdo arrimo liddi ku ah Soomaaliland oo dhanka gooni-sutaaga qaar waxay leeyihiin waxay ku diirayaan bar Soomaali weyn joogday aan kaaga jawaabay
shaydaanka iska naar anigu Soomaaliba waa ka tala baxayaa mar hadii xumaani timi meeshii oo beeshii dhaxay goobta haydaan wada noolayn ay la yiriir bay noqonayaan anigu waxaan islaa xamar nabadee Somaliland tan halkan joogta dadka isu wada keen wada shira qanci wixii cuqdada ah dadka cuqdadaysan laga saaro hal la wada hadlo taas ka shaqeynay laakiin iyagii baa xamar intay fadhiisteen yiriir Soomaali yaana marka daarood hadaan noqdo maxaad igu diidi لا إله إلا الله قديم مدة كلا شركة لا إله وحفر شيء وخير قبل قصبه لكن سومالان أنا بالدفاعية أنا سومالان لحية لباتن سنة شوقي أنا دفاعية شركة واحدة يا أبتو أنا سلامة